ayaamuhu waa wareegto adduunyadu waa harguura irmaankeediiyo ladnaanta aadmigu laba goor ma haysto fakhrigu abtirsiima ma aha haddaad amin xoola hayso nimcadu kula aabba ma aha miskiinka awood dareeyey itaalkiiyo haynta liita ayaankiiyo maalmihiisu berriba way iman karaane adduunyo qofkaad ku dhaanto duruufi agtaada keentay ha noqon ma arxamo bakhayla ku dhaafaya oomanaanta ku dayraya arag yaraanta ku diidaya uurmadhnaanta lahaw daymada islaamka lahaw damqashada ogaalka ka daa urugada waxyeelka ka daa digashiya ilaaqda ka daa afxumada saboolka markuu aqalkaagu buuxo haddii ereygaa waxgooyo markay hayntaa isgaadho haddii dadba kuu istaago markii anfacaa samaado haddii amarkaa fulaayo oo aad بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن آد السلام يا أصحابتك وحرم جنن كفردوس تساني وحن هاد علينا يا أصحابتي دي هراء وأن مرو البوت وأنا هالمامين وحن كلو عن هاد علينا يا أصحابت مركز سيكو صوب بيرتح وعن ليه جزاكم الله خيرا جزاء وحن كلو عن باقو درايا حتى كريب كيغان أدركتو walaalkay ama walaashay afkan aan ku hadlayo luuqadayda garanayo markastoodii aragto please waxaan kaa codsadaa waa like share comment caafimaad qabo oo aad la wadaagtid sababtoo ah dhiirigelinayaaba ii tahay waa galab anagoo caafimaad qabna mar labaad isku soo noqonay anoo caafimaad qaba idinkana waxaan idinka rajaynayaa idinka oo caafimaad qaba inaad ii caafimaad qabtaan waxaan markasta u duceeyaa inta xanuunsanaysa oo aan leeyahay ilaahu xanuunka ka dulqaad dhammaan muslimiintana waan u duceeyaa xanuunkan iyo caajiskan iyo coronaviruskan iyo dhaqaale xumadan iyo qayladan meel walba kasoo dhacaysana waan ka ducaysanaynaa insha allah in la isxasuusiyo oo runtii waynala waa karbaash iyo imtixaan cudurkan dhaqaale xumada keenay ee caalamkii oo dhan ka jira waxaan idin xasuusinayaa in ilaahay loo noqdo xitaa dadka Soomaalidu waxay ahaan jireen dad marka ay dhibaato ku dhacdo amaba ay ilaahay baa loo carari jiray sida abaaraha oo kale runtii in ilaahay loo cararo oo la ducaysto oo bal xanuunkan maalin walba la leeyahay uu soo batay ee warwarka keenay dhimashadii oo badatay dhaqaale xumo masiibooyinkii nimco waa imtixaan baan oran karaa ilaahay baa inagu imtixaamaya in la garto inuu imtixaan alle kugu socdo inuu yahayna in aad dareento la xasuusiyo oo runtii la ogaado qofka baahan in qofka bukaanka ah runtii coronavirusku dadka cudurkan ka anfariiriyay ummadii dadka wuxuu ku dilayaa gaajo iyo cidlo anaa search baan sameeyay runtii wuxuu ku dilayaa inta badan dadka wuxuu kullay horta saacadiisii baa qofkan gashay oo qofkan saacadiisii way gashay laakiin inta badan gaajo ayay dadku ku dhimanayaan iyo cidlo lagaga cararo qofkaaga ha ka cararin saacada ilaahay saacadaada maalin buu ku dilaya maalintaadana ma dhaafisid laakiin qofkaaga kuu dhow waxaan leeyahay hala caawiyo oo caloosha ha loo buuxiyo oo geed kuleelkeeni ha la ogaado oo waxaan ku yiri maraqeeni ha la ogaado marka waxaan intaasaan ku dhaafayaa maanta waxaan jecelahay runtii inaan ka hadlo labada hablood ee labaduba geesahayga joogaan runtii waxaan markasta aan rabaa in aan idhaahdo wacyigeli gabdhaha Soomaaliyeed dhibaatada haysatana inaan walaalaheena kale u gudbiyo hadda dhibaataan ka hadalnay Faadmo Buraanbur iyo wiilkeedii Salmaan haystay runtii Faadmo Buraanbur iyo Salmaan waxaan baa qudireynay qurba joogta sida reer Sweden baan afkayga ku dhuftay reer Sweden iyo reer Norway runtii ma sha Allah tabaarakallah markiiba jawaab degdeg ah ayaabay soo siiyeen iyadoo labadeeda garab taagan yihiin oo ay dhibaatadii haysatay ka barbar taagan yihiin marka wacyigelinta saasaynu ka wadaynaa qofkan xishoonaya ee dhibaataysani ma hadli karayo
qofkan dhibaataysan ee ama codkiisu meel gaadhayn ee aan media meel uu ka gala haynin waa inayn inagu haddaan meediyihii soo gallay dadkeena dhibaataysan dadka kala xasuusino oo aynu baaq u dirno. aad baan u mahad celinayaa runtii reer Sweden way ka jawaabeen baaqii aan u dirnay waanay la soo hadleen Faadumo barbarkeedina way taagan yihiin iyaga iyo reer Norway. maanta yaan baaq u dirayaa, maanta waxaan u dirayaa baaq waa Kenyadan aan ku noolahay iyo Holland. labadaa barnaamij waxaan doonay inaan iska daba qabto. barnaamijka koobaad waxa weeyaan inanta Holland joogta ee Naciimo Ducaale ay wareysatay. Naciimo Ducaale inanta ay wareysatay caruurtii waa laga qaatay. Holland qabiilka iyo qabyaaladana inaan kala qabiilka inaynu adeegsano ma aha qabyaalad, laakiin waxaynu adeegsanaynaa la tacaarufo. inanta waxaa la ii sheegay inay tahay inan Isxaaqa. inantaas waa inantan idinka muuqan doonta sawirka hooyadeed baa kula jirta. inantaa yar Holland baa caruurtii lagaga qaatay. Holland markii caruurtii lagaga qaatay stress bay dareentay, isla hadal bay bilowday, kaam ayaabaa lagu xareeyay. dadkii Soomaaliyeed ee kaamka joogay waa iska weynaysiiyeen, waa ka carareen, haddana way isla sii hadashay. inantaa yar waxaa la ii sheegay inay tahay inan yar oo Isxaaq ah. waxa weyn reer Somaliland waa habar Yoonis waxay ka tahay Isxaaq. waa la ii soo cadeeyay waxa aan qabiilka meesha u keenayna maaha qabyaalad, qof waliba qabiilkiisa u gurmada iyo dadka Ilaahay u soo diro. hadda Naciimo Ducaale la qabiil ma aha, laakiin Ilaahay baa u soo diray. waxaan leeyahay Isxaaq iyo Muuse Ismaaciilka Amsterdam iyo Belgiumka joogo qaar badan baa i daawada, qaar badan baan ogahay oo asxaabtayda kamid ah. inantaa yar ee ku jirta kaamka ee afarteedii caruuraha laga qaatay ee isla hadal bilowday ee gabadhan Hana Abakor la dhahaana. Hana Abakor dhibaatooyinka ay u geysatay waxaa kamid ah intay lacag ku uruursatay 18,000 oo euro ah. 18,000 euro ma la garanayo meel alaala meelay martay. 18,000 oo euro ah ayaabay ku uruursatay. saasaa la iigu soo sheegayay. 18,000 oo euro lacag aad u badan bay ahayd, inkastoona garanayn dollar waxay ku noqonayso 2,500 taqriiban lacag u dhow ama ka yar amaha ka badato, laakiin 2,500 kama yaraanayso. inantaas waxa aan leeyahay muslimka oo dhan baan baaq u dirayaa. dadka joogo Amsterdam inta caawinaysa inta caawisay dhammaan waxaan leeyahay jasaakumullahu khayr. dadka ehelkeedii laakiin cid lagama hayo. waxa aan leeyahay dadka habar Yoonis Isxaaq iyo Muuse Ismaaciilka Amsterdam deganow inta i daawatay baaqaygana gaarayo inanta ha loo gurmado, ha loo kaco. waxaan kaloo rabaa in loo gurmado iyadana oo loo kaco oo Hana Abakorna baaqan u diray. Hana Abakor labadan dumar ka hadh. Hana Abakor masiibo iyay kuugu dhicin. Hana Abakor dhibaato iyay kuugu dhicin habaarka iska daa. adduunyadu way dhamaataa, laakiin wajigu ma dhamaado. la kulanka Rabbina waa mid dambeeya oo isagu xanuun badan oo lagu wixii aad gashatay adduunkan la arki doona. marka waxaan leeyahay gabadhan yar nasteexo hooyadeedna Hana Abakor hadday ii suuro gasho codkeedii iyadoo ooyeysaan idin dhagaysiin. Hana Abakor ha ka hadho dumarka ay dhibaataynayso ee ay lacagta wali ku raadinayso ee ay caruurtoodii isku dirayso ee ay caruurtoodii daba socoto. Hana Abakor badanida. Hana Abakor walaalay badanida. Hana Abakor badana. Hana Abakor inanta yar Holland ku xidhan lacag bay ku uruursatay $300 oo dollar bay ka gaarsiisay. shilin kale oo ay ka gaarsiisay ma jirto. inanta yar waa inan dhibaataysan Holland joogta. gabadhan kale ee xagar dheer ku nool ee Kenya xagar dheer qaxoontiga ku jirta inanteedii yareed ba way dhacdaa. caruuro badan oo waxa jira hooyooyinkood ka carara oo ka bahalaysa oo farha laga qaadayna inagu nidhahnaa way jiraan. gabadha yar way carartay, orod bay bilowday, socod bay bilowday. socodkii iyo orodkii ay bilowday. Hana Abakor baa heshay baa la yidhi, meel ay ka heshay garan maaye. marka
waxaana gabadha wadaadada ah ee Khadiija la dhaho miyay ahayd magaceedu ee Mareykanka joogta ee islaamka u gargaarta ee masaajidada ku xiran ayaaba la rabaa in lagu xumeeyo iyadii ninkeeda oo iska shaqaysta oo Mareykanka jooga oo la rabaa in iyaga lagu karbaasho oo lagu dacweeyo marka waxa aan leeyahay salaadkay casar ba soo galay waxa aan leeyahay oo ku soo gabagabeynaya hadalkayga hana abakoray masiibay kugu dhicinay dadkan ka hadh oo daa awlaada oo dumarkan dhibaataysanad sii dhibaysad xoolahoodana cunayso daa masiibay kugu dhicinay masiibay kugu dhicin ee ka hadh dumarkan taa Amsterdamna ka hadh ee dhibaataysan yada kulli lacagtii wixii aad ka heshay ka cuntay tan baad hadda raadinaysa inaad lacag ku cunto tan baad nasteexa hooyadeed baad hadda rabtaa inaad xoolo ku cunto waxaad kaloo rabtaa in aad gabadhaas muslimka oo dhan caawisa ee Mareykanka dan iyo ninkeeda aad dhibaatayso ka hadh Ilaahay baan kugu dhaarshay oo daa umada salaadkii casar baa la soo galay waxaan idinkaga tagaa waxa weeyaan meel xaqi ku hadlay baadil kuma socon doona insha Allah biidnillah waxaan idinkaga tagayaa waa walaashin waa miskiintiin oo idin leh please subscribe like share iyo comment waa xaqiina assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh